إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إلهي سبحانه وتعالى wax badan ayuu kitaabka ku soo celceliyey qisooyinka. sidaa waxaa loola jeedaa inay dadku ku caqli qaataan oo ay ku ogaadaan sida loogu talagalay diinta. qisooyinka cajaa'ibta badan ee rabbi nooga warramay waxaa ka mid a ambiyaalkii hore iyo waxyaabihii kala qabsaday ayaga iyo qoomkooda, sida loo imtixaamay, dhibka ay diinta u soo mareen, iyo sida ilaah subxaanahu wa tacaala marka dambe uu u siiyey ciribta dambe ee fiican. waxaa loola jeedaa barta oo ogaada, qisooyinkaa ku dhaqma oo fiiriya, si haddii aad rabtaan inaad horumar iyo wanaag gaartaan, dhibka adduunka aad ka fakataan, mujtamaca sida loola dhaqmo aad rabtaan inaad ogaataan, wax ka ogaada qisooyinka iyo dadka wanaagsan wixii ayaga iyo qoomkooda dhex maray. qof walba oo barta oo ku dadaala oo ku dhaqma waxaa u khafiif noqonaya mashaakilaadka adduunka, waxaa u fududaanaya dhibka iyo waxyaabaha kale oo bulshada gobolka mid ah marka uu kala kulmaayo. nebiyooyinka iyo rususha iyo ambiyaalka iyo noo tilmaamay ama qisooyinkooda waxna loogaga tilmaamay waxaa ka mid ahaa nebigii ugu sabirka badnaa oo dhibka iyo imtixaanka adag la marsiiyey, kaasoo dulqaatay oo adkaystay waa nebiyullaahi ayuub calayhi salaam. nebi ayuub wuxuu ka mid yahay ilaahay ambiyaalka uu doortay, haddana ugu imtixaanka iyo dhibaatada badnaa. sidaa darteed ayaa wax badan la imtixaamay, imtixaan qof walba ama qofku sabri kara uu yar yahay ama uusan markaa jirin. sidaa darteed ayuu ilaah yidhi wa ayuuba id naadaa rabbahu, waxaad xustaa ayuub waqti rabbigii uu u naadiyey. ilaahay ayuu u qayliyey subxaana wa tacaala, muxuu yidhi annii massaniya durru, ilaahayow ani dhibaa i taabtay iyo mashaakil, wa anta arxamu araaximiin, adigana inta naxariisata ayaad u naxariis badan tahay, inta raxmata ayaad u naxariis qiimo badan tahay. ilaahayow adaa yaqaana raxmadda iyo wanaagayga sida markaa ku jira. ayuub waxa ii ka gaartay inuu rabbigii u qayliyo, inuu rabbigii u qaylo dhaansado. meesha waxaan ka fahmaynaa axad loo qaylsadaa inuusan jirin ilaa ilaahay maahane, axad wax laga rajayn karaa male ilaa ilaahay maahane. sidaa darteed ayuu ayuub qayliyey, dhibkii aa ka batay, kurbadii iyo durkii marka korkiisa koray ayuu yidhi id naadaa rabba, rabbigiis ayuu u naadiyey. ilaah ayuu u qayliyey, muxuu yidhi annii massaniya durru, ilaahayow ani duraa i taabtay, ilaahayow dhib ayaa i taabtay, wa anta arxamu araaximiin, inta naxariisatana ilaahayow adigaa u naxariis badan. haddaba nebi ayuub calayhi salaam waxaa la sheegaa in hooyadiis ay tahay gabadhii ay u dhalay nebi luut calayhi salaam. arrintaa kayrkeedna waa la sheegaa aabbihii wuxuu ahaa ayaa la yidhi miman aamana biibraahiim, qoladii iyo nid rumeeyey nebi ibraahim calayhi salaam, weliba maalintii dabka lagu riday oo dabka uusan gubin, ilaahayna ka ilaaliyey subxaana wa tacaala. nin rumeeyey ayuu ka mid ahaa naagtiisa laya binti yacquub ayaa la dhihi jiray. qolo ka mid ahna waxay dhaheen raxma binti masaad bin yacquub ayaa la dhihi jiray. haddaba nebi ayuub rabbigiis ayuu u naadiyey dhibaato qabsatay darteed oo yidhi ilaahayow dhibkaan iga qaad, adiga waxaa tahay mid, anigu waxaan ahay mid dhib taabtay, adigana inta naxariisata ayaad ilaahayow u naxariis badan tahay. ayuub wuxuu ahaa ayaa la yidhi rajul kathiira almaal, xoolo fara badan leh, maalkaas oo saa'irta iyo noocyaalka kala duwan dhammaan markaa la siiyey. noocyaalka xoolaha oo idil xagga ancaamta, cabiidka iyo wixii markaa la mid ah ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. waxa uu lahaa awlaad iyo ehel fara badan ayaa la yidhi, maca daalika waa laga siibay xoolihii uu lahaa, ehelkii uu lahaa dhammaantood ayuu hal mar ilaahay ka bixiyey subxaana wa tacaala. waxaa la ibtileeyey ayuub oo imtixaan la saaray jasadkiisa, weliba anwaac oo balaayooyinka iyo imtixaanka iyo mixnada ka mid ah ayaa si fiican loogu imtixaamay, ilaa cudur adag marka uu qabsaday ayuub calayhi salaam. ibtalaha iyo imtixaanka ayaa la saaray, jasadkiisii ayaa noocyo cuduro lagu ibtileeyey, wax baaqi ka
noqday jasadkiisa ma jirin hal cudwi ama hal xubin oo saliim ka ah oo ka badbaaday oon qalbigiisa iyo carabkiisa ahayn. waayo labadaa rabbi ayuu ku xusaayey, xuska alla ma joojinin, xuska alla ayuu ku socday. maca daalika jasadkiisa inta kale waa la ibtileeyey, waa la imtixaamay. waa meesha uu ka leeyahay rabbi uu leeyahay annii massaniya durru, ilaahayow dur ayaa i taabtay, ilaahayow dhib ayaa i asiibay. wa anta arxamu araaximiin, inta raxmata oo naxariista u saaxiibka ah oo inta naxariisatana adigaa u naxariis fiicane. jasadkiisa xubin aba xibin kama baaqi noqonin oo saliim ah oo cudur ka badbaaday oon qalbiga iyo carabka ahayn. waa labada maxal ee ilaahay laga xuso. qalbiga allaa looga fikiraa, jannada ayaa lagu rajeeyaa, xumaantaa laga bixiyaa, wanaagaa lagu kaydiyaa, iimaanka iyo tawxiidka ayaa qalbiga lagu sugaa, carabkana allaa laga xusaa, ilaahayaa laga ammaanaa, diintaa lagu aqriyaa, salaada marka la tukanayaa wax lagula aqriyaa, khayrka iyo wanaagaa lagu sheegaa, dacwada ayaa dadka lagu gaarsiiyaa. idan labadaa meelood ayuu rabbi uga soo reebay, saliimna ay ka noqotay jasadkiisa si uu rabbi ugu xuso subxaana wa tacaala. wa huwa fii dalik, asagoo arrintaa ku sugan dhammaan oo ilmihiisii la qaaday, owlaadiisii laga siibay, jasadkiisa lagu imtixaamay cuduro iyo arrimooyin kale, ayaa saabiran muxtasiba, wuxuu noqday mid sabar badan oo ku ajir xisaabsada. waa ku ajir xisaabsanayey, waa u adkaystay oo waa sabray. maca daalika ayuu noqday mid daakir ah oo xusa rabbigii caza wajal fii leylihi wanahaari, habeenkiisa iyo maalintiisa, subax iyo galab, habeen iyo maalin. maca daalika ayuu noqday mid rabbigiis xusa subxaana wa tacaala. dhibkaa ku dhacay dhammaantii ma argagixin, mashaakil iyo dhib kalena ma asiibin, wax kale ma samayn ilaa inuu ilaahay u tabarucay, oo ilaahay isku duleeyey, oo ilaahay u noqday maahane subxaana wa tacaala. dhibaatadaa faraha badan ayaa la saaray ayuub, wuxuu noqday mid sabir badan oo ku sabray arrintaa, wuxuu noqday mid ku dulqaatay oo ogaaday waxaan mixno iyo imtixaan xagga rabbi ka yimid inay markaa yihiin. aad ayuu u adkaystay. ilaahay ayaa ka sheekeeyey, wadakur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya ashaytaanu binusbin wacadaab. xus ayuu dhahay ilaahay, waxaad kitaabka ku sheegtaa addoonkeenii ayuub ahaa. wadakur cabdanaa ayuuba, addoonkeenii ayuub ahaa xus. rasuulkii allah ummadda suu u sabray maba gaari karaane, say ugu daysadaan u sheeg. ummadda sida loo imtixaamay in dadka la imtixaamaya ogow. waxyaabaha cudurada iyo dhibaatada iyo mashaakilka adduunka jacayl alle iyo naceeb alle inuusan ahayn. waayo nebi ayuub oo qiimo iyo wanaag leh, alla agtiisa sharaf iyo tixgelin ka mudan, ayaa imtixaankan adag la saaray. ee ummadda u sheeg say u ogaadaan, say u gartaan, say ula socdaan, say u fahmaan. wadakur cabdanaa ayuuba, addoonkeenii ayuub ahaa uga sheekay. id naadaa rabbahu, waqti rabbigiis uu u naadiyey, ilaahiisa uu u qayliyey, uu yidhi annii massaniya shaytaan, ilaahayow shaytaan ayaa binusbin wacadaab, dhib iyo cadaabba igu taabtay. rabbi suu u waday oo looga soo sheekaynayey. waxaan rabnaa inaan ogaano sida uu u sabraye. alla wuxuu yidhi innaa wajadnaahu saabiraa, waxaan helnay ayuub inuu yahay nin saabir ah oo sabir badan. nicma alcabdu innahu awaab, addoon ayaa nicmo leh, mid noqosho badan ayuu ahaa. sidaa darteed ayuu ayuub ilaahay wanaagga iyo sharafta iyo qiimaha u yeelay. dadka iimaanka leh ayaa aad loo rabaa inay arrintaa ogaadaan. xoolihiisa iyo maalkiisa, owlaadii uu dhalay dhammaan ayaa la baabi'iyey oo wada dhintay. wax soo haray ma jirin ilaa asaga iyo naagtiisa maahane. sidaa darteed ayaa asagoo dhibkaa iyo mashaakilka iyo dhibkaa qaba wuxuu ku qaabilay sabir iyo ajar xisaabsasho. innaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu innahu awaab. waxaan helnay inuu sabir badan yahay, inuu dulqaad badan yahay, inuu adkaystay oo aad iyo aad ugu dulqaatay qadaha iyo qadarka ilaah subxaana wa tacaala. waxaa u dheeraa daakir, inuu ilaahiisa xusaayey. waxaan ka fahmaynaa qofka
imtixaan adduun markuu u yimaado inuusan cibaadada ka go'in, inuu weligii ku socdo haddii jiran yahay, haddii dhib kala haysto, haddii kurba iyo mashaakil adduun haysto, weliba aad iyo aad inuu ugu degdego ama uu ugu dadaalo inuu rabbigiis ka cabsado oo mar walba cibaadada uu xoojiyo. dhibaatada maantana haysataa waxaa ka mid ah qofka ama dadka gobol ka mida waxaa jira kuwa haddii khayr la siiyana ku xasila diinta oo diinta haysanaya, haddii shar iyo imtixaan la taabsiiyana argagaxaaya oo diinta markaa ka leexanaya. taas ayuu ilaahay diidaya subxaana wa tacaala. mar walba waxaa la rabaa haddaad nashid iyo mukrih aad ku jirto, haddaad tahay qof dhib qaba iyo in kalaba, inaad rabbigaas isku si aad u caabudo. wa min annaasi man yacbudu allaha calaa xarfin, dadka waxaa ku jira dad rabbigood caabudaya xaraf ayay ku caabudaan. waxay ku caabudaan meel gees ah, waxay ku caabudaan si aan sugnayn, waxay ku caabudaan si qalqalooc ah ama gadgadoomis ah. fa in asaabahu khayr, haddii khayr asiibo iطma'ana bih, waa ku xasilaa. haddii xoolo la siiyo, haddii wanaag la siiyo, diintuu ku xasilaa, diintuu ku deganaana. wa in asaabathu fitna, hadday fitna iyo imtixaan asiibto, weliba fitna ayuu ka cabiray ilaahay, waa imtixaan yar oo asaga kala fiiriyo, inqalaba calaa wajhihi, wejigiisa ayuu u qalibmaa, wejigiisa ayuu u gadoomaa, meeshiisii hore ayuu ku noqonaa. haddii wax waayo oo xoolihii iyo wixii hore loo siiyey laga qaato, ayadoo loola jeeda mixno iyo fitno iyo imtixaan yar oo la rabo in lagu kala ogaado iimaankiisa, la rabo in lagu ogaado khayrka uu diinta ka gaarsiisan yahay, ma sabraayo ma adkaysanaayo, balse inqalaba calaa wajhihi, wejigiisuu u libna ka waramakaas khasira addunya waalaakhira, adduun ayuu ku khasaaray, aakhira ayuu ku khasaaray. dalika huwa alkhusraanu almubiin, arrintaa waa khasaaro cad ayuu yidhi ilaah. war diinta waxaa la rabaa mar walba in ilaahay la caabudo ilaa yaqiintu ay timaado. dhib iyo dheef haddii la helo, haddii la aradan yahay iyo haddii dhar la qabo, haddii mashaakil adduun iyo kayrba lagu kala jiro, ilaahay in la caabudo subxaanahu wa tacaala. in dhibaatada yar ee lagu taabsiiyey aan laga dhigin fitna weyn, aan wax kale laga dhigin. waad u jeedaa nebi ayuub calayhi salaam sida ilaahay uu ku qaabilay iyo dhibaatada la gaarsiiyey, ma argagixin oo ma xanaaqin. ilaahay kama eed sheegani subxaana wa tacaala, balse waa sugnaaday oo diinta ayuu ku sugnaaday, waa sabray oo waa ajir xisaabsaday. rabbi ayuu xusay habeen iyo maalin, sabaax iyo masaa, waqti walba oo markaa lagu jiray ayuu ilaahay si fiican u xusay subxaana wa tacaala. haddaba maradkii iyo jiradii ayaa ku dheeraatay ayuub way ku dheeraadeen ilaa jaliiskiisa iyo dadkii la fadhiyey ama la fadhiisan jiray ay nacayn. unayskii iyo dadkii uu weheshan jiray oo ka noqday waxshi iyo wax cidla'a. waxaa go'ay xaggiisa dadkii ayaa ka go'ay, wax baaqi ku noqday ma jiro. axad xanaaneeya oo wanaajiya dushiisa oo aan zawjadiisa ahayn. waxay ahayd naag dhaqaalaysa, xaqiisa ayay fulin jirtay iyo wax allaala wixii uu u baahan yahay. waxay aqoonsatay nimadiisii qadiimka ahayd uu horay ugu samayn jiray, shafaqadii iyo naxariistii uu u geli jiray. ileen dadka waxaa ku jira ummad cajaa'ib badan oo dhib walba iyo mashaakil kasta oo ku yimaada aan garabkaaga faaruqin. dadka dad noocaas ah ayaa ku jira, dad qiimo badan ayaa ku jira. waxaa kaloo la tilmaamaa 2 wiil oo walaalihiis ahaa, ayagana saasoo kale inay ahaayeen. say noqotaba saaxiibadii waa xaaskiise ayaa wax badan waxay u garab istaagtay inay ricaayadiisa iyo maamulkiisa, wanaajintiisa iyo waxtarkiisa iyo sidii wax loogu tari lahaa inay garab istaagtay. dadkii oo dhan waa naceen ayuub, dadkii oo dhan ayaa ka firxaday. wuxuu noqday nin wehel u baahday, waxaa ka go'ay xaggiisa dadkii oo idil. wallaahi axad baaqi ku noqday oo garabkiisa istaagay oo dhaqaalaynayay oo asaga wuxuu u baahnaa u taraayay ma jirin aan zawjadiisa iyo islaantiisa markaa ka ahayn. zawjooyinku waxay leeyihiin hadday wanaagsanaadaan sharaf gooni ah,
allah subxaanahu wa tacaala haddii uu toosiyo waxay noqdaan kuwa kaa ilowsiiya ama ku halmaansiiya mashaakil walba oo markaa kusoo food saara. amaa zawjaadka qayb ka mid ah ama sawjooyinka waxay yihiin kuwa dhibaatada kuu horseeda, kuwa diinta kaa bixiya, kuwa kugu kalifa xaaraan iyo dulmi iyo macaasi inaad gasho. say noqotaba xaasaska mar walba waxaa laga rabaa inay noqdaan dad alla yaqaana oo diinta rabbi ku socda oo khayrka ku dadaala. hadday sidaa yeelaan ilaahay wanaag ayuu siinaa subxaanahu wa tacaala. sawjadiisaa garab istaagtay, naag ahlu diin ah oo rabbi diintiisa taqaan ayay ahayd. waxay ahayd haweenay ilaahay ku xiran, maalkiisii ayaa baaba'ay oo maal la'aan kuma nicin, owlaadiisii ayaa dhammaaday oo owlaad la'aan kuma nicin, jasadkiisa ayaa dhib iyo mashaakil kala asiibay kuma nicin, balse garabkiisa ayay istaagtay. hooyooyinka ama dumarka la qaba gobol ka mid ah raggu waxay kula ag joogaan dana qaas ah oo ayagu ay wataan keliya, kama ahan nolol isku darsi, ma ahan ceeshka oo ay wadaagaan. war guurka xaqiiqda ah waxaa loola jeedaa midda ninka iyo naagta ay noloshu wadaagaan.